السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجد كجامعة إنه سو كلميي. والله كلنا وحن دوننا ما ركتنا إلهي إننا ندوانه. أئمتنا يا علماءنا أخيارتا خير كبدن لمساجد كإنه سو دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا نبحنا إلهي إننا ندوانه. يعني إلهي ودوانه وأنا آخرتنا ودي أرجرونه وأنا دويدنا كقاعدنا الدين waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebel u dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaa, iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weynka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-aynaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dad iyo adduunye muxuu ka tegey. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innagu markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdillaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhowla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi
qosolka aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam hadii asxaabtii nabi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nabigu dul joogo oo ilaahay xasuusiyo oo dhimashada xasuusiyo oo aakhirada xasuusiyo inakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaalana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nabi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aanu wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nabigu yiri macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkaayo buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato baad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam marka qabrigii la geliyay iilka la duldhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yidhi istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su'aashii qabriga la weydiinayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhiraad taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhiddigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan uu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may sead u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamkao dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan leetareedkii baan ku noolay leetareedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإنه قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعطو شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وإن أتقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريادة متيستي وإلهي ويان كرجاها متيستي وإلهي ويان كعبسدة متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بعداد كليجي وشيغو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكى لأنكم رقمه وحكى لما آمن سني دين بانو نولحي دين بان برانيا دين بان كشقينيا وفق دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نيكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعد ما يسترتب النبي قول عليه الصلاة والسلام وين أدنقطة قف لله أنه لو طريق الصحابة كنت على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو السنين علي بن أبي طالب وننكي كورف ديبو قنوفو جيغا لغا طفي مرقاسو علي
qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufa kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadha ay soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisi iyo naciimtiisi iyo xurulcayntiisi markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minkuu ku seexda weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhulmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiihaa nasab wamaa hum minhaa bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal uu soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha mu'minku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه كل شيء سورة أفوفا نابا إلهي يري إسرافيل بسورة أفوفا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي والله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نقصوكعي waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلى هيري آية الليل آية النهار نولشان الدنيا أن كنا لهي ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد زيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر
وبرجينا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله أيدي نعم الدنيا انت اللي جوجو واحد جوجي سوا مالني هبين قبرك هدي لك دغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نو شيغو يري قبرك waa laba mid weeyaan ama waa rawda min riyad aljanna imma hufratu min hufar النار mu'minkiina berberaha jannada kamida looga dhigaya gaalkiina waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurda maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan لأنه يصوب حيان يوم القيامة بالنت سرجوجة ويوم قرآنك يوم بوشيجة هبين مشيجن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 kun oo sanadood ibn abbas radiyallahu anhuma مفسر كي قرآن كوحو كفسروا يدي أفرتن كونو سنة والله جوجي توبان كونو سنة حساب تاكو دماني دون تبو يدي أفرتن كونو سنة ويا سيد الله تاكنان دونا توبان كونو سنة حساب تاكو دمان دون لنا عربي ورير بادية أيا سراك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك يا كود دارته وان بدباد نبودي وان نبض قلبي مرقابو النبي يقول صونقو سيادو كن نبض قشيبو كيدي بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دونوسك يا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك ماذا مجرو حتى جرى نبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عيد وكلا فعلين يسا مجرته لغة عربية لغة واضح الله يا حاجة ميدك تو هاجي عمل كيسيبو أركي حاجة بدح تو هاجي عمل كيسيبو أركي هرتي سو هاجي نارتي بو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كياشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي يقول تمر جيح تمر اني كان انهلين ابو نبي يقول هذا الكوناك سنكوها الله
كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو النبي قوله عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقية دمر مالنتاس ما ليستحسعون يا هوا ليستحسعون يا قفك كلمونا لإيقين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نمبا ما قبط با ما نقبا ما بإيقين يا أبو رسول قل همي قام مجربوا لي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ميهيقين مركاسا لقولين مروق تن بدن وما حيبا لقويري ما دادكن وحي اوغان بعد ادغو اوغاتay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegaya al mawtu fi unuqi geeridi baa qoorta ii sudan wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan wa ala siraati tariiqi wadada la marin doonana waa jidka siraad weeyaan wa rabbi la adri maada yaf'alu bi rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oo hinba nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أيه تري يا رسول الله مالك سرجوجا أيه وات كيسان كرا يبي كتير من يقوى أيه كرا يبي كتير كنت كنا صندوق مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة دفرت كإنت أتوكتان لك بابنك قيام الله قد يجيبودي انتهت كنا صلاة المغرب 6 دقيقة 12 دقيقة 13 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية انتو جوجا كالصايقاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرة كسر حساب تمي إيه تلابضو قادة يبا إيه آخرة ديس هذا الكنتو كسو بحين قفك مؤمنك آخرة إيه دقاليه سينتو ننبحين آخرة إيه ماشو مريو آخرة إيه ماشا أنو السعودة ما مال آخرة ذي يقدر دعوة سبا مسوا مال آخرة ذي وحيد رئيسه هذا الكاي يقصوا بحايا ما هذا الآخرة ذي دعوة يبا أو نبي كي سنة يهدو طوله مسوا هذا الآخرة ذي دعكوبة بعد أيو دقالهم بحنا أيو ما دقال آخرة ذي كبا يبا أو آخرة كوبة بعد يبا أو ما مال في عمو يقول دعيا مس آخرة ذي بو دقالها سيجا بحنا يا أو كقب صداين تقوري قورته مؤمن كو حساب تميا مؤمنك أدوية دوشيدا إلهي كسو أدعي كسو عابدي صلاة دايرة فردك انت أتكني إن لعك بابنك قيام الله قد قيا دراري يا هبين آخرة هورتا الله يك آخرة قفك هدي هورتا الله محي كور آخرة كوكو سامينس نورش هذا آخرة محي كور ريبا سامتقانا واحد وانت كوهد لكريميسي واحد وانت إيجي كريميسي واحد وانت عوني كريميسي sidaa doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya maalin maalmaha ka mid a ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa
markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahdaa wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaanaad eegaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabbaatulqalbi bay culammadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culammadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajiddooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynaayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyey innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiyey buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weynaynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiine intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadahan rumayna kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mar iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo way soo baxayeen haddana maalin kale uu yidhi ina mar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bnu cumar suuqa waad nagaysaa maalin walba
badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan 100 qof baan u ducaynaynaa 100kaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa 100ka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa 100 qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhergayaa cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa birtaa arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu yidhi arsaaqadu way kuu furmiyeen meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa yaa may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhiro manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiraan ku dhargno ku liibaanno marka noloshan adduunyada intaan haysanno waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinaha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min addahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado
may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolahan dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale 3 nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu yidhi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam 3 nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kuna tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo 3doodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sida isku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee addoomihiisii addoon ka mid u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dar al-Ghifaari u geey hadduu lacagtaa Abu Dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Darna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaah oo Uthmaan bin Affaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadka taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cuna isagu Abu Dar al-Ghifaariyi radiyallahu canhu markaa ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha inte ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu yidhi amiirkii mu'miniinta Uthmaan baan salaan kaaga sidaa waan kaa qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran
masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxee i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waan ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada iyana kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaraddan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kalean meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal alay sl oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi de maxaad u kacday bood igu sheegi weyday de waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhire midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagala ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen
xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo Allah ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayc washiraa علم البيع والشراء علماء كانوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة تقلوه رنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياض السوق يقع نوح كوي بن كرامة جرب عمر رنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء شاينية تايلان بلغوض الدولي هبريه بقى سعودة كلها شاين هاو سعودة حاجة نسعنا والمؤمن وحال دون هنا نقطة مؤمن لا بد أن نودك كوتا على إلا أدوية هذا كويعو إلا آخرة هذا كويعو آخرة هذا هنا أدوية كوسجن أدوية وإنير وحن جوجنا إنير ولا ليال إن تاير إن جوجنو إلهي هكذا بقنو ودين هكذا قادنو ودين تنا هم برنو ودين تنا هكذا شقينو وزمن هذاك باللجوجرا زمن كان لجوجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر أبو نبي قولي والزمن النبي محمد سيشاقي كون يافر بقولو سنة كهر نيكا دين تمارين تاير على وان حج السن وحاوكد لقنان دونا نندا معلو دي بيبو رسول كيولي بالشدة تكون نوشا ما انت ايك ومجتمع خير كوكو يراضي شركو بطي ميش هذو بحضا بيش هذو حيكون عيسى ما وحي إلهي كفرحية بس وحي إلهي كعريسية مجتمع ومجتمع قفكو هدوير على ما أنت صنع النبي كفر علي وأتكان يسألون قبصد إلهي يقول نبي رأيه موياني مركز زمن هذاك بانكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين هنا الدين تنوصل نقولنا ودالك الدين تا علماء مروا بينه وقوب باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعية الله قبنا أيو ومد الله كل لو فكر أيو وردالك الدين هذا ما أنت عالم كالسعوداء للربع عامة إنه إنه علماء أنت قرب جوكسته عن ملك اليهود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا دالك الدين تا بس دقيستيال ونكسب ما نقولنا يا دقيستو ونكسن لو حكوا ونكسن دقيستوا من الدين وياه لكن وحالة إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيمت الله كقالته أتكقادا كرتا صحابة رسولكم نول بالصلاحية دي لهي وقليي ومدو كوافعي كي علم لها علمك ومدو وحكو تري كي دغال لها دغالو ومدو وحكو تري كي رغنما لها رغنما ومدو وحكو تري كي وجاهد لها وجاهد دي سوء ومدو وحكو تري اسماء بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركي صلح الحديبية وكا عذر دارتي عمر وعد انيغا ما يبول عثمان باكو مناسبة بولي عثمان باكو مناسبة عثمان بن نبي قدري دل ورنتي عثمان وادو تك خالد بن وليد جيس النمدي يرق النمدو لها ومدو وحكو تري ما انتو سو اسلامي بن نبي سيفته او كيني سيفته نيغا قبا بولي الله ان دبيدا في ويدي maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seefta oo ilaahay diintiisa u jihaad walla raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inaguna kulligeen insha Allah ta'ala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqday insha Allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallahi waan runtan inii sheegay macallinka quraanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda
qaybtoodii bay diinta ka hayaan. Muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa. qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa. wa'tasimuu bixablillaahi jamac baa la sheegay, jamac. hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo. kalimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad. kalimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi jannaduu galay buu rasuulku yidhi, jannadaan ku arkay buu yidhi. haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay. markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi, jannadaan ku arkay, jannadaan ku arkay. maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi. khayrku yaryaraysi ma leh. marka waanan inagu dheereeyey. in sha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marina ilaahay bay soo dhex mariyey. anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro, ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo. culummadaana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr. sheekh maxamed waxaan leenahay margeysaan u marti kumehiye waan deganahay. ya waan deganahay maasha allah. ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga. marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen. hada وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وعاف مبتلانا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل